أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa ku soo dhawaataan mawduuc ku saabsan ama faa'iidada uu leeyahay saytuunka. Miraha saytuunka ama saytuunka aan cunno noo baxo faa'iidada uu leeyahay ayaan ka hadlaynaa. Biliis hadduu muuqaalkeena aad kuu cajabiyo, walaalkii ama walaashayda waxaan kaa baryaynaa inaad subscribe-ta iyo like-ta noogu roonaatid. maanta marka saytuun maxay tahay? Horta saytuunka muxuu taraa? Dadkeena ma fahansano saytuunka wuxuu taraa. Saytuunka waxaa ku jirto faa'iido badan oo aad u weyn ku jirto. Marka koowaad wuxuu yareeyaa saytuunka blood sokorka, sokorta wuu yareeyaa. Wuxuu kaloo u roon yahay hadduu qofka qabo wadne xanuun uu wax walba cabo, saytuunka wuu ka yaraanayaa wadne xanuunkii. Lambar 2 waayaa. Lambar 3 wuxuu yareeyaa xanuunka saa'idka ah markay gabadha ku jirto xilliga caadada. Haddii caadada ku xanuunsato wuxuu u yahay xanuun baabi'e. Koob cabitaan oo saytuun haddii cabto mas xabad mir ama xabad saytuun ay cunto. Waxaa kaloo yareeyaa sidaan ka warqabno gabadha waxaa lama jiraa caloosha markii caadada ku dhacdo waa u roon yahay. Calool majiirkana wuu u roon yahay. waxaa kaloo u roon yahay faa'iido uu leeyahay digestive systemka, habdhiska digestion systemka inuu si fiican u shaqeeyo ayuu leeyahay. wuxuu kaloo ka hortagaa ama uu la dagaalaa inuu qofka ku dhaco kansar. wuxuu kaloo kor u qaadaa difaaca jirka qofka. wuxuu kaloo hormariyaa hormoonada ama dhacaanada shaqadooda ayuu hormariyaa. waxaa kaloo uu leeyahay oo saytuunka faa'iido leeyahay. wuxuu leeyahay kuwan kuu soo sheegay lower of blood sugar levelka inuu yareeyo. wuxuu kaloo leeyahay inuu menstruation digestive systemka inuu yahay. muxuu kaloo leeyahay weight loss. qofka duubuuraha mase beel ku jira caloosha ay weyn tahay, caloosha weyn wuu yareeyaa, wuu jaraa xeertaas, wuu jarayaa baruurta, wuu jarayaa. wuxuu kaloo leeyahay faa'iidooyin fara badan. faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah inuu leeyahay saytuunka markay sokorta yaraato qofku wuxuu horumar sameynayaa, noloshiisa horumar ayuu ku sameynayaa. waxaa la ogaada warar badan in la tijaabiyey uuna fiican yahay cabitaanka saytuunka ama cunidiisa inuu leeyahay faa'iido badan. waxaa kaloo dadku leeyahay inay cabaan caleenta saytuunka ama mirtiisa inay cabaan, taasoo hoos u yareynayso maalintii inay cabaan 2 saac 2 hour kadib inay cabaan, ama inay wax walba koob saytuun ah ay cabaan ayuu leeyahay. xagga wadnaha markaan ka fiirino ama haartiga aan ka fiirino wuxuu faa'iido leeyahay. wuxuu leeyahay inuu qofka si wax walba kor u qaado, high levelkiisana uu fiiriyo, iyo fitamiina ku jiro. caleentaasi waxay ka hortagtaa cudurka ku imaanaya heart damage ama wadnaha inuu dhaawac soo gaaro ayay ka hortagtaa. waxayna leedahay potassium inay leedahay fibra ku jiro, fibrigna uu ku jiraa. marka ogaada faa'iidadaas ayuu leeyahay saytuunka. maxaa kaloo la fiirin karaa LDH-ka waa loo fiirin karaa, ama haddii jirto cholesterolka waa yareeyaa, ama high risk heartiga diseaska wuu yareeyaa, stroke inuu dhaco wuu yareeyaa. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay wuxuu ka hortagaa sida kansarka. waan taan nii sheegay. wuxuu leeyahay help relief painful symptoms of menstruationka. hadday xanuun saa'id jiro ayaa calaamad saa isku aragto, xanuunka calaamadaha
menstruationka ama caadada wuxuu leeyahay wuu u roon yahay haddii gabadha markaas ay cabto koob saytuun ah ama mirtiisa ay cunto ama caleentiisa intay tumato biyo kuleel ku darsato ay cabto wuu u roon yahay. saytuunka caleentiisa hataa way tumaysaa, biyo kuleel ku darsanaysaa, sida koob shaac camal oo cabaysaa. gabadhaasi xanuunka wuu daaynayaa. ogaada taasna faa'iida ay ku jirto dadkaygiiow. wuxuu kaloo leeyahay caloosha weyn dadka ama way yaraysaa ama way jartaa, xeerta badan way jartaa ama wuu jaraa saytuunka. ogaada taas. marka aan ka faa'iidaysano saytuunka mirihiisa ama geedka saytuunka mirihiisa aad ayay faa'iido badan u leeyihiin. vitamin c yaa ku jiro. vitamin c-gaas wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah, wuxuuna joogtayaa difaaca jirka, health immune systemka ayuu joogteeyaa. wuxuu ka hortagaa inuu qofkan ku dhaco hergeb, wuu ka hortagaa. maxaa yeelay rudhiis wuxuu yareeyaa xilliga hergebka ku dhici lahaa wuu yareeyaa, waayo qofkan difaaca jirkiisa ayaa saa'id ah. wuxuu kaloo ka hortagaa, wuxuu ka caawiyaa inay ku dhacaan infection ama bacteria ay keento ama fayraska sida lead of infectionka wuu ka hortagaa. maxaa yeelay waxaa ku jiro vitamin c, taasoo u fududeynayso inuu jirka muhiimad u leedahay si u joogteeyo inafn u helo waxyaabo badan oo jirka difaaci karo ayuu siiyaa. haddaa cunitaanka saytuunka cuntid jirkaaga wuu saa'idayaa, wuxuu noqonayaa jir dhalaalaay, ifaaya, xaadiisa soo baxdo ama iskiinkaaga qurux kelic ayuu noqonayaa, taasoo samayn karto inay shaqo fiican qaban karaan ama ay tahay iskiinkaaga in si taxaddar uu fiicnaado ama wax kasoo dhaawac kasoo soo gaaro iskaga difaaco. damage kastoo ku imaado inuu yari slow down wuu yareynayaa. against way process ayaa dhaca salbi. waxaa laga caawinaya in laga hortago dhawaacyadu gaari lahaa, inuu ka hortago hadduu qofka caleen saytuunka cabo, guava leaveska ama uu cabo. taasa ogaada. saytuunka wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan. xagga indhaha wuu u roon yahay. aragtidaada waxay noqonaysaa saa'id haddaad cabtid koob saytuuna subax walbo iyo duhur walba haddaad cabtid. faa'iido badan ayay leedahay. indhaha araggaada u fiican yahay. ogaaw ka faa'iidayso maanta. haddaa ogeen hadda ogaaw, baro, tijaabi. wixii commentiga hoos ayaa noogu soo qori kartiin. waxaa iskaga dareentid hoos ayaa noogu soo qori kartiin. hataa haddii aa miraha saytuunka waasid, caleemihiis markay baxayaan si qurux badan u baxayaan, soo jaro tun cab sidii shaaca malo cab. saytuunka caleentiisa faa'iido badan ayaa ku jirta. wuxuu leeyahay sokorta wuu ka hortagaa, wuxuuna leeyahay waxyaabo badan aan la soo koobi karin. sidaas daraaddeed waa inaan ka faa'iidaysanaa cabidda saytuunka ama caleentiisa shaaca cabin. haddaan mirahaysana inaan ka faa'iidaysanaa sida wax walba ay noogu suurtagalaan. dhirtaasa u jeediin waxaa ka buuxa faa'iidooyin fara badan. barnaamijkeena wuxuu noqonayaa hadda kadib maalmaha khamiis kasta waxaan ka hadlaynaa arrimaha caafimaadka iyo faa'iidada ay miraha dadka u leeyihin aan abuurno, ama faa'iida darada ay leeyihin kuwa faa'iida darada leh, ama faa'iida leeyihin ama dhibaatada ay keeni karaan ama faa'iidan ka macaashi karno ayaan maalin walba soo qaadanaynaa. saytuunka wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan. haddaba sidaas darteed waa inaan ku dadaalnaa inaan raadinaa ama samaysanaa cabitaanka saytuunka, waayo saytuunka wuxuu leeyahay wax fiican. ha laga faa'iidaysto, ha la cabo. aniga maalin walbaan cabaa. caleentiisa daan waan raadiyaa. caleentiisa iska ruugaa. caleentiisa intaan tuntaan shaac camal biyo kale ku qastaan iska cabaa markay qabowdo. wax maiga dhibo, caloosha ma ku istaagayso, saxare ma waynaysid, calool weynoo intaa badan cunto iska soo buuxsamaysa, caloosha iska weyninaysa ma jirto. ismeel aa noqonaysaa. wax walbo jirkaaga wuu dhisayaa, aragtidaada kor ayuu qaadayaa, daal ma isku arkaysid. saytuunka wuu fiican yahay, ha laga faa'iidaysto ayaan leeyahay.
mar walba ku dadaal dhanka caafimaadkaaga iyo horumarkaaga. Walaalkayga qaaliga hayow iyo walaashayda qaaliga hayow, muuqaalkan hadduu kusoo gaaro si wanaagsan u dhegeyso, subscribe-ta, like-ta iyo share-ta, comment-ka anaga baqiilin. Anaga mar walba dhiirigelin ayay noo tahay. Ka faa'iidaysi wacan. Awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa kusoo dhawaataan mawduuc ku saabsan ama faa'iidada uu leeyahay saytuunka. Miraha saytuunka ama saytuunka aan cunno noo baxo faa'iidada uu leeyahay ayaan ka hadlaynaa. Biliis hadduu muuqaalkeena aad kuu cajabiyo, walaalkay